arkaya anagoo san 10kii leeyo waliba 10kii waxaan ku baraarugaya iyadoo 10kii samuurada la dhigayba la dhameeyay mar waxaan soo baraarugay iyadoo galaaskiiba laga baxo kaligay dhex fadhiyo ishqiyo darar bawadinao kolkiiba dhambu ka dheeliyo ruuxbu ka dhabyo udhaawacano ruuxbu dheeliyo layahay dheelere ruuxbu dhuniyo wiyahay dheefo ruuxbu dhuraniyo layahay dhalante 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 ruuxwaa dhintu ilkana dhigayo sidii dhaydageel ruuxwaa dhame kulanti waxaan wanaagsan saaxiibada kala duwan ee halkan naga daawanayo kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qiso iyo qiro oo markan aynu ku wareysan doono dhinaca khadka taleefanka qof ka mid ah dhibanayaasha jacaylka ama ka qaybgalayaasha barnaamijka qiso iyo qiro barnaamijku qofku hadduu joogo halkan barnaamijku dee xaruntiisu tahay oo waqtigu u saamaxay dadka wuxuu soo fadhiista si toos ah oo sidaan idin hor fadhiyo ah oo uga warrama qisadiisa haddii uu ka maqan yahay halkan oo wadanka uu ka maqan yahayna si aan u fudaydino inta la gaari doono xal kale waxa weeye dhinaca koolka ayaan wareysi kala yeelanaa bal sida waxu dhaceen oo si cod ah ama maqal ah ayuu wareysi nagu siiya walaal ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed barnaamijkan ku xidhan ayaa doonaysa inay barnaamijkan bal qisadeeda ay kusoo bandhigto ugu horeyn iyada ayaan waqti siinaya koolka si toos ay ku jirtaa halo salaamu calaykum وعليكم السلام walaal marka hore kusoo dhawow barnaamijka qiso iyo qiro waan dhawaa walaal mahadsantahay bal hadda marka hore adigoo halka barnaamijka bilaabaya magacaaga annaga iyo daawadayaashuba barnaamijka waxaan ka noqon doonaa bal qisadaada dhegeystayaal waad mahadsantahay waad bilaaban kartaa أكثر ما كنت أرى لو ندوه هاي أكثر ما كنت أستدي سدويس أنا ما قاعد أشتغل بالو حوله صح لو ندوه هاي واي qisadaada guda gal sidee ku bilaabantay أوكي قصدي إذا هذا عن كذا كلا مدة قدرت أي كسورتي سنة أو قدرت أي كسورتي سنة إلى أول صدح بلاد آخر بلاد صح أي وحنا شو قاعد سوا أيوة. بعد قلب قر أي قلب هاي أي وحنا قاعدين من حفلة لوكو قبناي بعد ماشي حفلة مركا أنتي سيدا دي عادة أنا حفلة ضد بدن أي ماشي أسوي مع ده أو دي قبل أي ولا بيسوي كده بعد ما وحنا نسكب برا ماشي ويل كم ضد كي حفلة تشوفي هيا halkii markaan isku barno wiilkii lambaradii aan kala qoranay wiilkii sida baan isku baranay sida baan ku qaatay xafladii oo dhamaatay sida baan guriga ku soo aaday inankay sida baan isku soo xiriirnay ka bacdi markii dambe uu xiigo codsaday wiilkii waxaan wada hadalay inaan xiriir jacayl ay u soo bandhigtay aniguna waan ka aqbalay maadaama marka hore aan anigu kulli xaqayga aan ka helay hadana ana waxna aan u sheegi karin hadna markii ii soo bandhigtay isagii waan ka aqbalay صح sidii waxaan ahaanoo xiriirkayga aan wadano anigu meesha waxaan u joogo markaa arrimo dhow isagoo sidoo kale wuxuu joogo waxbarasho waxaa la gaaray xilligii aan hawshii isoo dhamaanaysay aan xaggan u soo safrayay kabacdi waan u sheegay waxaan ku yiri waan tagay صح
maadaama dee aan wado kalena ii banan inkastoo igu adkayd oo dee aad dareemayso qof aad jeceshay markaad ka fogaanayso waddanka shay aad ka egsay xaalad aad u adagtay haddana aan ku qasbanay wado kale aan ii banaanay waxaan isla qaadanay inaan sidii aan ku soo tago aan isku soo mahal salaamayno oo aan ku soo dhoofo صح waxaa naga dhexeeya runtii xiriir aad u fiican waxaan ahay dad aad isugu wanaagsan oo aad isugu jecelo koley xiriir aad u wanaagsan oo ka dhexeeyo balana kusoo kala qaatay inaanay dee dad aan noqonayno dhib iyo dheefka kala qaybsado xaalad walba oo kusoo gudboonato dad si wada jira uga gudba aanu markaan kusoo kala tegan aan saar kusoo balanay صح kabacdi markii aan xaggan imi ayaan u sheegay inaan dee nabad tegay waan ilaahay nabadgeliyo safarkaygii sidii baanu xiriirkaygii aanu kusii wadanay sidii baanu jacaylkaygii bartii aanu kasii wadanay oo xiriirkaygii u socday kabacdi isagii markaan aan joogay muddo 4 bilood aan halkan aan joogay ayuu wuxuu aaday isagana muqdisho wuxuu aaday hawlo shaqo صح kabacdi sidii anagoo isu soo xiriirnay xiriirkaygii uu socdo maalinta ka dambeysa jacaylkii aanu qabo uu kasii siyaadayo ayaa maalinta dambe waxaa dhacday wiilkii inuu isbedel ku yimaado hadalkii iyo soo xiriirinayay uu dee wax iska dhimo dareemaysa qofkii dee markood sidii uu ku taqaanay wax iska bedelaan صح waan arkay inuu wax iska bedelaan laakiin ma aanan weydiin waan iska aamusay dhowr dee muddo markay waxay sidii ahaato maalintiiba ayaan isku day inaan weydiiyo waxa dee isbedelkan ku keenay صح kabacdi wuxuu igu yidhi waxba ma isbedelin laakiin waan mashquulsan hawlo shaqay waxaasan galay saas baan u mashquulay okay baan dhahay haddana dee muddadii markii daan arkay wax isbedelan imanan hadba markii ka dambeyso uu xiriirkiisii yaraanayo la hadalkiisa uu yaraanayo oo dee xiriirintii wuxuu soo xiriirinaya ay sii yaraanayso ayaan haddana mar labaad weydiiyey waxaan ku yidhi maxaa isbedelkan kugu dhacay maad ii sheegi kartaa kabacdi wuxuu igu yidhi waxaan ka codsanaya nolosheeda dhafaraa iga qaadid marka kale aniga ahaan ruuxaantii waxay nagu noqotay arrin aad iyo aad u xanuun badan okay baan ku dhahay waxna anaan ku dhihin baan telefoonka waan ku dhigay waan iska tegay sidii baan ku daayay horta ruuxaantii markaan telefoonka dhigay ayaan horta aniga miyiri ugu dambeysay صح waxaan ku baraarugay markii dambe xaafadii dhakhtar leegay markii aan soo maray xaafadii waa la waristo inkastoo xaafadeeda hooyadii walaalay waxa dhan ay ogaaneen inanka xiriirka naga dhaceeyay iyo dee jacaylka naga dhaxeeyay ilaa hooyadii ay ogaayeen oo ay ila socdeen xaaladeeda way weydiin waxay weydiin marka xaaladda igu soo dareysatay dee dhibkan igu keentay kabacdi sheekadii waan uga sheegay say wax u dhaceen walaashay marka aniga walaashay wax badan dee ka ogeyd inkastoo xaafaddu oogay laakiin iyadoo aan aad isugu dhownahay ayaa waxay isku daday inay wiilkii wacdo haye kabacdi lambarkii uu ka qaban waayay صح aniga whatsappkayga waan si ka waxaan arkay inuu i baloogay صح waan ordaadan waxaan is dhahay telefoonkiisa gacanta ayaan isku dayay inaan ka waco uu iga qaban waayay waan iska daayay aad bay horta dee kole waa dareemaysaa qof markaad jeceshay oo aad meelaad kala xidhiidhowdo noloshan aad ka maarmi karin horta xaalad aad u adag badgalaysaa run ahaantii صح marka waa dareemaysaa xaaladda aan ku jiray kabacdi waxaa wiil ay isaga saaxiib yihiin oo marka aan isnaqanay ayaan raadiyey wiilkii lambarkiisa baan soo helay waxaan ka codsaday markaa telefoonku inuu igu geeyey waxaan ka codsaday inuu balooga iga qaado oo iga qaaday waan la hadlay waxaan ma weydiin oo ma oran maxaad ii baloogtay maxaa dhacay maxaad waxaan dhan igu samaysaa keliya waxaan ka codsaday inuu ila hadlo oon صح حتى يسوق حيان يسوق حرين لكن كل يقولون أنا مو والله هلا بلوغ أنا صار بس أنت هسمع قصة ويا أنت وقصة معنا وحنا سيدها أنا ومركز كان أركي إنه يلبسنا يقف يجلس كذي هاي يسوي كذا هذا المركز هو وأورنا حد يقص واحد سواء مشكور صنع هو بنكون شراء إدا وحيانا عاصي يقول هلا أي حدنا معنا تتنبأ أي وحدعي ولا الحمد لله نرشد المرلبات إن تفرق إيجا قاعد واي وحاضر لا إذا إيجا صبحين تلفونك ويقول هذا نوع إبلاغة واي حالات كلو عاد بس عاد قاعدين إبلاغة واي أنا ما قاعدين كرقف كان أنا كما قاعدين كريساوتا وأنا كحلاي هي
xumaan kastoo igu sameynay ima muuqato mar kastoo igu dhaho anoo arkay inuu iga khalday inuu waxaan oo dhan igu sameynay haddana mar kasta waxaan jeclayn isaga aan raali geliyo inaan ugu khalad kasta ilkada ku saarto ku dhaca anaa khaldan anaa wax kasta kaa ragelinay khaladan jirin baan dhahaa anaa sameeyo wax kasta aan isku dayay inaan bal isaga qanciyo sax kabacdi maalinta sidii buu igu baloogay wuxuu sidii igu baloogana mar saddexaadkii ayaan haddana ka codsaday inuu balooga iga qaado telefoonkiisa gacanta intaan ka wuxuu iga qabtay sax uu iga qaaday haddana adigu muddo ilaa 2 bilood meelahaas ayuu aanu sii xiriirin inkastoo aan xiriir caadi aanu hayn oo mar kasta aan wuxuu telefoonku mar igu dhegeysan jiray mar igu dhigayo mar igu qaylinayo dabeecadana marka horeba aan kala kulmay oran jiray maxaad iga soo wacsaa idaa noloshada wada dhibtay ma ku rabi idaa waxyaabo noocaas ah goornay mar kastana niyad jab aan kala kulmi jiray xageesa iyo dhaawacaada xanuun badan sax adoo muddo 2 bilood markii aan sidii xiriirkii u socday laakiin aan xiriir fiican ahayn ayuu haddana markii dambe mar afraadkii ayuu baloogay telefoonkiisa gacanta aan ka wici jiray marba anuu iska bedelay qof kasta aan garanayay aan isla telefoon uga dir ama weydii ama ka warayso telefoonka markaan ku iibay lama hadlayo meelaan ka xiriir ma jirto lambarada dhan iska bedelay Facebook baloog sar WhatsApp baloog sar meel kasta oo iga baloogaray waa kasta lambarada aan ku lahaan jirin aan ka garanayay ka wixii jirana oo iska wada bedelay cid kasta asxaabtiisa aan xiriir la lahaa aan la hadli jirin weydiin jirin markaas aan ku igu geey lama hadlayo xataa alaan saas iyo magacaay laakiin marna ma weydiisay waxa bedelay iyo sababtu isu bedelay iyo halkii salaadu ka xidhmi laadahay waan weydiiyay marar badan inaan ogaado inaan isku day laakiin iguma jawaabna iguma siin mar kasta aan weydiiyo aan ku dhaw waxa bedelay maxaa iskeenay muddo wuxuu igu jawaabayaa waan mashquulsanahay markaan ku dhaw waxaan mashquul ma noqon karto ileen qof huwa mashquula waa run laakiin se xiriirku isma bedelay labada qof ka dhaxeeya markaan taa weydiina wuxuu igala hor imanaya hadallo kulul iyo karooxay oranay wala noloshada farac iga qaad marka dambe waxaan ku qasbanay inaan baan weydiino sababtoo aan ka cabsanay qofkan inuu iga sii fogaado marka ma weydiin jirin maadaama aan arkay markasta aan weydiino iga sii fogaanayo kaliya waxaan soo jiray markasta bal adigu isku day inaad raali geliso adigu khaladka saddex saarto ma baqalda ana khaldan صح marka ilaa xad la saas buu iga maqayaa goortii kugu dambeysay ood kala tagtaan ama uu isagu tagay imisa ka soo wareegay ilaa 2 bilood waa ka soo wareegay labada bilood ka soo wareegtay bal waxaad noo sawir nooga bixisaa xaaladaad ku sugan tahay wallahi horta xaalad aad adag baan ku suganahay sababtoo ودريمس وقف مركز عشاء وقال كمار مكرين وقف كهذا نلاشة السكة في هرت حالة والله وحنون بدن وحيقول صار إدي حرت حتى عدد فاملي حافظ أن قوة نورلن وحد على المركز قال أن dadkii aan xaafada ku nool aan dhibsado bulshadii ka dhex baxo aan noqdo qof markasta kali iska joogta sidoo kale bulshadii hadalkoodii ama xiriirintoodii markasta ka deeqa bulshadii gooni uga socono dhibsanayso wax kasta ka cararsan noqonayna qof aan jeclaysan markasta kali iska joogo sidoo kale waxbarashadii aan waday sidoo kale waxa iga hortimi iyadana caqabad oo markasta aan soo ama casharkii xiisadii marka dadka waxbarashada kale aadan xiisadii aan soo gal waxaan is arkayaa anagoo san casharkii la wadiba casharkii waxaan ku baraarugayaa iyadoo casharkii samuurada la dhigayo la dhameeyay mar waxaan soo baraarugay iyadoo galaaskiiba laga baxo kaliya dhex fadhiyo صح marka wallahi xaalad aad waxaan badan caqabado fara badan oo iga hor yimaadeen maniyo qof go'aan qaadan karta xataa maaha qof qalbigayga ka baxay manaha qof aan ilaaway
laakiin maba ii banaana wada aan dee u maro Soomaa waan u mari lahaa hadan helay laakiin maba haystay oo meelka aan ka raadiyay belihiba ilaa imika waxa 2 bilood kadib waxa lima jiraan may waxa la wax warar kuma helay adigana xaaladda baad ku suganta walahi xaalad aad u adag waad baahsan tahay hadda isaga wuxuu joogaa magaalada muqdisho markii ugu dambeysay halkaas buu joogay adiguna aniguna Holland baan joogaa okay walaal wixii tala ah waxaan u dhaafi doonaa saaxiibada kala duwan ee barnaamijka daawanaya anigu insha Allah waan ku ducaynaya mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay walaal adiguna waad ku mahadsantahay sida barnaamijka uga soo qayb gashay okay walaal waayahay war haddii aadna dhegeysanaysa walaal ama ay jiraan dee asxaabtiisuba qaar ka mid ayna dhegeysanaya kolley waa iskaranaya waxaan leenahay ar darajo lagama gaadho qalbi ibni aadan ah oo laga holcelinayo qofaad sabab la-aan kaga tagtay qofaad shalay adigu raadsatood baratay qofaad shalay adigu jacayl u bandhigatay qofaad adigu marka horeba kolkolin iyo kalgacayl la gashay bilaa sabab kaga tag war darajo lagama helo inantaa ha ka ohinin ha ka murugeysiinin intaa in ka badan waa inan hablo way kula dhasheen baa laga yaabaa way ku dhaleen waad dhashay waad dhali doontaa way kuu dhexi doonaan hablaha aynu aada u ilaalino barnaamijka qiso iyo qiiro haddaad doonaysid inaad ka qeyb gasho oo sidan aan u fadhiya aad usoo fadhiisato aad ku sugan tahay magaalada Hargeysa telefoonkan nagala soo xiriir iyo WhatsApp-kan sidoo kale qofka hadduu ku sugan dalka dibadiisa wuu ka qeyb geli karaa isagoo oo sida hadda oo kale gabadhan oo joogta Holland ay barnaamijka ay uga qeyb gasho saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin